bismillaahi raxmaani raxiim ida Somali Star Online Training casharada English Language and Computer Teaching casharo fara badan ay noo socdeen maanta phrase baan arki doonaa weeraha sidaan isugu xiri karnay weeraha isku xiranba siday yihiin waa somalistaronline.blogspot.com oo kusoo gudagali doonaa haddii aan doono iyadoo casharo fara badan ardaydan horey ay usoo arkeen step waana muhiim jiddan taas iyadoo Somali Star Online Training English Professional and Computer teaching professional waxaan la soo xiriiri doonaa direct number ama Gmail iyo Yahoo waan usoo diri karnaa iyadoo casharo fara badan halkaa laga sii faa'iidaysan doona ardayda kala duwan step halkaasaan sii maraynaa waana very important casharadii phrase-ka ayaan arki doonaa phrase weeraha iyadoo step loo arki doono casharo kala duwan oo ay nagu soo socdaan phrases-kana way kala duwan yihiin phrase-kee baan arki doonaa su-aalo ayaa laga shaqayn doonaa iyadoo cashirka phrase-ka hore aan aqrin doono kadibna su-aalaha ardayda dhashka ay buuxin doonaan iyadoo step casharadaasoo kala duwanna loo qaadan doono waana muhiim jiddan taas step by step Somali Star Online Training casharada kala duwanaa English Language and Computer Teaching iyadoo casharo fara badanna horey loo soo arkay waxaan la soo xiriiri doonaa somalistar@yahoo.com wixii macluumaad oo dheeri halkaasaan iska weydaarsan doonaa ama somalistaronline.blogspot.com phrase-kaan arki doonaa maanta iyadoo cashirkeena step aan u daawan doonaa cashiro kala duwanna halkaa inoo imaan doonaan he will arrive baa dhihi doontaa he will arrive wuxuu imaan doonaa tomorrow beri morning subaxnimada beris wuxuu imaan doonaa she will come this evening galabnimadan ay imaan doontaa I shall see waan arki doonaa waa booqan doonaa the day after tomorrow maanta mooye maanta mooye beri baan booqan doonaa beri mooye weliba saadan baan sii booqan doonaa I shall see waan arki doonaa weeye the day maanta after tomorrow mooye beri mooye saadan baan arki doonaa he will not believe me ima aaminsana aniga asiga we shall not remain here halkan ma sii joogi doono this things belongs to my husband gabadhi baa tiri this things shayadani belong waxaa iskale to my husband ninkayga this coat jacket can belongs to me anaa iskale this shoe kabahani belongs to my wife xaaskaygaa iskale this pen isqalimaantan belong to Tom ayaa iskale this suitcase boorsadaani shandadaahi belongs to you adiga ayaa iskale okay phraseska oo exercise-kana kan ayaan ka dhigaynaa look at this examples fiir tusaalooyinkan it is cold today maanta waa qabow but laakiin it was hot yesterday shalay kuleyl ayay ahayd it is wet waa qoyaan today maanta but laakiin it was dash ardayga laga rabaa inuu buuxiyo maadaama aan tusaale siinay he is late waa uu daahay again mar labaad today maanta but laakiin he was dash this test tijaabadan is easy way fududahay but laakiin that one is dash ardayga laga rabaa this book buugani is expensive waa qaali but laakiin that one kaasi is dash ardaygaa buuxin doono waana iisoo diri doontaan that filimkaasi was interesting uu xiiso badan yahay but laakiin the other one kan kale dash ardaygaa laga rabaa Betty gabadha la yiraahdo Pretty way qurux badan tahay wiji qurux badan bay leedahay but laakiin Jane is dash ardaygaa buuxin doona taasina waa Somali Star Online Training casharadii kala duwanaa English Language and Computer Teaching iyadoo casharo fara badan ardayda ay soo arkeen casharadii mihigaanka ahaa ee Engineer Maxamed Barre ayaan la soo xiriiri doonaa iyadoo dashtana la buuxin doono maanta waxaan arki doonaa phrase waa weeraha saan isugu xiri karno dashtana waan buuxin doonaa iyadoo tilaabo casharo fara badan hore loo soo arkay halkaasaa la sii marayaa somalistar@yahoo.com ardayda imtixaanka danaynaysaa buugga New Concept English ayaa la soo xiriiri doonto oo Practice and Progress book yahay silsilada New Concept English ka tirsan ardayda imtixaanka danaynayska ayaa la soo xiriiri doonaan somalistaronline.blogspot.com wixii fiidiyoyaan ka daawan doonaa direct numberna waa la soo xiriiri doonaa ida casharo kala duwan aan horey u soo baranay phrase waa weeraha he will arrive tomorrow morning beris wuxuu imaan doonaa she will come this evening galabnimadan bay imaan doontaa I shall see waan arki doonaa the day after tomorrow beri mooye saa dambe he will not believe me ma aaminsana we shall not remain here halkan baaqi kuma sii ahaan doono ma sii joogi doono weeye these things shayadani belong to my husband ninkaygaa iskale shayadani this coat jacket can belongs to me anaa iskale this shoe kabahani belongs to my wife xaaskaygaa iskale
this pen is qalimaantani belong to Tom ayaa iskale. This suitcase shandadani belongs to you adiga ayaa iskale. phraseski saas ayaan ku aragnay iyadoo la buuxbuuxinayana waa kan look at phrase weerahan look at this example fiir tusaalooyinkan oo buuxbuuxi weeye. It is cold today maanta waa qabow but laakiin it was hot yesterday shalay kuleel bay ahayd. It is wet waa qoyaan today maanta but laakiin it was dash ardaygan ka rabaa inuu buuxiyo. He is late waa uu daahay again mar labaad today maanta but laakiin he was dash ardayga intaa buuxin doono. This test tijaabadan is easy waa ay fududahay but laakiin that one taasi is waa haye dash ardayga soo buuxi halkaas. This book is expensive waa qaali but laakiin that one kaasi is waa dash ardayga halkaas ayaa soo buuxin doono. That filmkaasi was interesting wuu xiiso badan yahay but laakiin the other one kan kale dash ardayga buuxin doono. Betty gabadha yiraahdaan is pretty waa ay wiji qurxoon tahay but laakiin Jane gabadha la yiraahdo is waa dash ardayga ayaa halkaana buuxin doona iyadoo casharo fara badan Somali Star online training ardayda kala duwan halka aan ka soo baranay halka ayaa la sii maraya waana step by step ardaydii kala duwaneed Somali Star online training casharadii kala duwanaa waxaan la soo xiriiri doonaa wixii macluumaad somalistaronline.blogspot.com iyo casharo kala duwan hore aan u soo qaadanay new concept silsiladii new concept English buugi Brax and Progress aha casharadeen ilaa 9 bay sii marayaan cashirka 91aadna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa internetka ku soo gelin doonaa iyadoo casharo kala duwanna hore ardayda ay u soo qaateen ardayda kala duwan oo imtixaanada galaysa iyo ardayda qaadanaysa awaadiskaba halka ay kala sii xiriiri doonaan ardaydii ku nooleed waqooyiga Mareykanka kuwa England degan iyo kuwa degan India iyo Malaysia kuwa Afrika degan iyo kuwa Aasiya degan si siman bay u wada heli doonaan iyadoo step casharo kala duwan hore aan ugu soo qaadanay sida darteed fi amaanallah wassalaamu calaykum waraxmatullah.